السلام عليكم asxaabteyda sharafta leh ka faa'iideysiga waqtiga waa arrin xasaasi ah maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo gambaleelka aan ku xirano saacadda iyo sida dad kala duwan ay uga falceliyaan ma jiraa mid idinka mid ah oo gambaleelka saacadda ku xirto si uu u soo kaco subaxii waan hubaa waad suubisaan xoogaha waa arrin la yaab leh sida kala duwan oo ay dadka uga falceliyaan markuu gambaleelka yeero dadka gambaleelka saacadda ku xirto waxay u kala baxaan afar nooc qaybta koowaad dadka qaar markuu gambaleelka yeero hurdaday isku dhejiyaan waxay sii wataan hurdo aan inaba caadi ahayn dadka noocaan ah gambaleelkay ku xirtaan xitaa kuma kacaan xaqiiqdii dhaqamada xunxun oo ah in la iska jiifo ayay caadaysteen noloshooda xitaa kama fikirayaan dadka noocaan ah waxaa la dhahaa hurdaweynayaasha qaybta labaad waa kuwa markuu gambaleelka yeero waxay dhahayaan daqiiqad bal aan iska sii jiifo waa inaan isbedelo suubiyaa waan bedeli doonaa laakiin maanta ma ahan dabcan berito waqtiga iisii dheeree aan sii seexdee waxaan hubaa dad badan in ay saas suubiyaan dadka noocaan ah dhaqamada xunxun ayay leeyihiin oo ah beriyeynta beri ayaan wax qabsan doonaa saa dambe ayaan wax qabsan doonaa qaybta kaloo saddexaad waa kuwa markuu gambaleelka soo dhaco way kacaan waxay bilaabaan in ay sii dul fadhiyaan sariirta ku dul fakiraan su'aalo isweydiiyaan aniga yaa nahay maxaa weeye ujeedka noloshayda maxaan alamka ugu xirtay ama gambaleelka kadibna gambaleelka ay damiyaan hurdaday dib ugu laabtaan dadka noocaan ah waxaa la dhahaa caajisoolayaasha noloshooda wahsi iyo caajis bay ku luminayaan horsocod ma lahan ugu dambeyntii qaybta afaraad waa kuwa markay maqlaan gambaleelka xaqiiqdii way soo kacaan isla markiiba shaqo maalmoodkoodii horey ka bilaabaan waxay bilaabayaan in ay noloshooda hormariyaan dadka noocaan ah waxaa lagu tilmaami karaa dadka howlkarka ah dadka ka faa'iidaysta waqtigooda walaalayaal su-aasheeda ayaa ah afartan nooc adigu midkee tahay markii loo fiiriyo soo kicitaanka subaxii mudanayaali marwooyin aan noqonno kuwa soo kaca waqti fiican oona ka faa'iidaysta waqtigooda yaana noqonin kuwa caajisoolayaasha ah oo iska hurdo un si wanaagsan aan u fakirno si wanaagsan aan u hadalno wax wanaagsan aan suubinno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta hataa ku cusubtiin janalkan fadlan subscribe saar haddii aa hore noola socotay comment like share ka bixi insha allah saasaan isku